tani waa aamin taariikhi ah daawadayaal oo saamayn ku leh nolosha mustaqbalka iyo magaca dadka Soomaaliyeed. Waxaan ka soo warramaynaa munaasabadda maanta loo asteeyay in halkan soo dhaweyn loogu sameeyo markabkii qodi lahaa shidaalka oo Soomaaliya markii ugu horeysay ay doonayso in ay shidaalka iyo kheyraadka dihan dalkeeda ay soo saarto. Halkan waxaa ku sugan daawadayaal markabkan oo qodaya shidaalka Soomaaliya isla markaasna toddobaadyada soo aadan u shiraacanaya halka sahanka sanadkii hore laga sameeyay shidaalka Soomaaliya oo ku beegan xeebaha dhanka galmudug ku aadan. waxaa halkan ku sugan sidoo kale maraakiib kale oo qayb ka ah shaqada qodista shidaalka ee Soomaaliya oo isugu jira maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale maraakiib kale oo dhanka logistikada ka caawi doonta shaqada qodista shidaalka ee Soomaaliya. halkan waxaa goordhow imaanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wufuud ka socota dawladda walaalaha aanu nahay ee Turkiga oo halkan maraakiibta taagan ay dul babanayaan calaamada Turkiga iyo Soomaaliya taasi oo muujinaysa walaalnimada iyo wadajirka labada dawladood. munaasabadda daafurkan waxay ibafur u noqon doontaa dhacdo taariikhi ah oo nolosha dadka Soomaaliyeed saameyn weyn ku yeelan doonta isla markaasna jihay doonta mustaqbalkooda dhaqaale iyo wax soo saarka kheyraadka dihan ee Soomaaliya. waxaan idiin soo gudbin doonaa bahdina warbaahinta qaranka ee ku sugan munaasabadan oo ka dhacaysa dekedda Muqdisho dhacdooyinka kala duwan iyo khudbadaha ku aadan soo dhaweynta markabkan iyo maraakiibta kale ee galbinaysa ee ku aadan fursadan taariikhda nolosha dadka Soomaaliyeed baalka daabka ka gadi doonta. waxaan ahay Maxamed Cabduqaadir warbaahinta qaranka dekedda Muqdisho.